gudida jaaliyada midnimada Soomaaliyeed ee dalkani Jarmalka oo xiriir la soo sameeyay telefishinka caalamiga ee Hon Cable TV ayaa u habaliyay dhamaanba bulshada muslimiinta gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed iyagoo alle uga bariyay inuu ciideeda ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaana telefishinka caalamiga ee Hon Cable TV maray u waramayeen ay sheegeen in ay qabanqaabiyeen ciid ballaaran oo lagu qabanayo magaalada Karlsruhe ee dalkani Jarmalka iyagoo arrimaha ka hadlayana waxa hadalladoodii kamid ahaa sida gasha waxay kamid tahay shaqaairkii rasuul bini'aadanka ahaa ilaahay noo sheegay in aqbalno waxaan qabanqaabinaynaa ciidul hajj aan qabanqaabinaynaa Arafa saasaraadeed waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto inay khayr ku noolaato inuu ilaahay Allah wali umurana khiyarana wala tuwali umurana shirarana waxaan kaloo rajeynaa ummadda caalamka islaamka inuu ilaahay diinta dib ugu soo celiyo bismillahir rahmanir rahim waxaan ilaahay horta hadalka sida inaan ugu sii dheeraado ma rabo maadaama walaalkay intii aan sheegi lahaa uu isagu sheegay kulli caam wa antum bikhayr usbuuca soo socda laga bilaabo sidaas ayaan leenahay waxa kale oo aan u sheegaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay caalamka ka joogaan kulli caam wa antum bikhayr baanu leenahay waxa kale oo aan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada ama wadanka Jarmalka in ay nagala soo qayb galaan ciid ballaaran oo aan ku sameynayno magaalada Karlsruhe ciidaas oo ah ciidii ugu horeysay maaha tii ugu dambeysay maaha sanad walba waxa aan heegan u nahay in aanu shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed ama muslimka ah ee ku nool magaalada Karlsruhe iyo dhammaan wadanka Jarmalka had iyo jeer aan ugu talagalnay in aan u sameyno waxaan leenahay in ay nagala soo qayb galaan meel kasta oo ay joogaan ayaan u sheegaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool diyaar garowga ciida barakaysan ee uu Rabbigu ku soo dejiyay addoomihiisa ayaa dadaalkeedu meelo badan oo kamid ah caalamul islaamka waxaana bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Jarmalku ay u diyaar garoobayaan sidii hal meel ay ugu sameyn lahaayeen ciid ballaaran oo ku duwan ciidihii hore ee la qaban jiray waana 19 bisha aynu ku jirno magaalada Karlsruhe Mustafa Xaaji Aadan Haruun telefishinka caalamiga Hon Cable TV wararka Yurub